dawada haddaba haddii aad rabto inaad akhlaaqda hagaajiso inaad dadka aad soo jiidato inaad saaxiibo badan samaysato waliba saaxiibo xaqiiqo ah oo runtii been ahayn inay dadku ku jeclaadaan inaad akhlaaq yeelato haddii aad rabto waa inaad sifaadkan yeelataa sifada koowaad ee lagaga baahan yahay waxa weeyaan marka ugu horeysa waa qodobkeena koowaad waa inaad niyada hagaajisaa akhlaaqda wanaagsan ee aad rabto iyo dad la dhaqanka aad rabto inaad samayso waa maxay hadafka aad ka leedahay waa inaad niyadaada hagaajisayo aad ka dhigtaa qaabkan aad rabto dadka inaad ula dhaqanto ee wanaagsan waxaad ku raadinaysaa ajar baad ku raadinaysaa laakiinse kuma raadinaysid maslaxad kuma raadinaysid waxa in badan dhacda qof waxaad arkaysaa aad wax ka rabto ama mas'uul ah markaas maxay imanaya inaad siiro aad u macaan ula dhaqanto inaad soo dhaweyso inaad si fiican u salaanto laakiin hadafkaagu muxuu yahay hadafkaagu waxa weeye ninkan maslaxada aad leedahay ku dhameey haday dawada arintaasi jirto arintaasi sax ma aha waxa la rabaa akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu inaan isbedelin waxa la rabaa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaagsan marka aad ku dhaqmayso niyadaadu waa inay noqotaa inaad ilaahay ajir kaga raadinayso laakiin aanay ahayn qofkan maslaxad kaga raadi qofkan lacag kaga raadi qofkan mansab kaga raadi qofkan magac kaga raadi haddii kale maxay manaya in dhaqankaagu isbedelo oo markaad qof aad u baahan tahay aad aragtana dhaqankaagu wanaagsanaado oo soo dhaweyso oo si fiican aad ula hadasho markaad aragto qof aanad u baahnayna oo isagu ku baahana si kala aad ula dhaqanto si aan fiicnaan aad ula dhaqanto taladiidayna waa taa marka daawada qodobkan kuwaad muxuu tilmaamayaa waxa uu ku leeyahay haddii aad rabto runtii inaad akhlaaq wanaagsan yeelato haddii aad rabto dadku inay ku jeclaadaan oo dad la dhaqan aad yeelato waa inaad noqotaa man of principle waa inaad noqotaa oo macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa inaad mabaadi aamintaa waa in akhlaaqda ku noqotaa iyo dhaqanka wanaagsan mabaadi aan isbeddeleen oo dadka isla beddeleen waa in joogto ku noqdaan oo qofka maslaxada ka leedahay oo kaliya si fiican hawla dhaqmine qof kasta si fiican ula dhaqan kaasi waa qodobkeena koowaad sifada labaad ama qodobka labaad waxa weeyaan ee keensanaya runtii inaad runtii dadku ay ku jeclaadaan dadka inaad si fiican ula dhaqanto akhlaaqdaadu inay wanaagsanaato waxa weeyaan waa inaad dadka runtii aad ula dhaqantaa inay yihiin dad muhiim ah inay yihiin waa inaad ihtimaam gaar ah siisaa dadka marka la dhaqmayso qofka marka aad la dhaqmayso waa inaad runtii si gaar ah had u siisaa ihtimaam iyo muhiimad waa inaad u siisaa daawada waxaad ka soo qaadaa majlis baad meel la fadhiya soo gashay meeshii la fadhiyo marka aad soo gashay ayaa dadkii aad salaantay nin kamid ah dadka kamid ah salaanta uu ka qaado isagoo sii jeeda oo telefoonkiisa ku hadlaya ayuu salaanta ka qaado ku salaamay oo gacanta uu ka salaamay nin kalena waxa laga yaabaa inuu gacanta ka salaamay laakiinse isagoo runtii aan si qaboob ku salaamay oo xataa wajigaaga muu soo eegin manu qoslin marka uu ku salaamay mid kale oo dadkii kamid ah ayaa markuu ku arkay inay soo gashay ayuu istaagay isagoo dhoola cadeynaya ayuu dhinacaaga eegay kadib uu ku soo dhaweeyay kadib gacanta ku qaaday isagoo qoslaya oo runtii ku faraxsan markaas uu fadhiistay maxaa dareemaysaa saddexdan sida ku salaameen keeba qalbigaagu la jira keeba qalbigaaga markiiba soo jiidanaya waxa Allah baa qalbigaaga inuu soo jiidanayo qofkii ku kacay ee soo istaagay ee gacanta ku qaaday isagoo dhoola cadeynaya oo muxuu ahaay ku salaamaya taasi maxay tilmaamaysaa yaani qofkaasi wuxuu ku sii muhiimad buu ku sii qof muhiim u ka dhigay markasta oo qofka aad muhiim ka dhigto oo runtii dareensiiso inuu muhiim yahay waa markasta qofku ku jeclaanayo dawa qodobkan waxa la yiraahdaa qodob aad u dhabar ah waxa la yiraahdaa arinta waxaad ku kala saari kartaa haddii nin weyn maanta ku imaado masab hayso mas'uuli waxa laga yaabaa inaad u istaagto si fiican aad u soo dhaweyso waxa laga yaabaa qof yaro miskiin ah hadduu suuqa kugu salaamana inaad si yaro qabo u salaamto arintaas maxay tilmaamaysaa arintaas waxay tilmaamaysaa qaabka dadka ula dhaqmayso way kala duwan yihiin qofna muhiim baad ka dhigto qofna kama dhigin laakiin taa loo ma baahna waxa la rabaa qof kasta oo aad la dhaqmayso inaad ka soo qaado inuu muhiim yahay oo sidee baad uga soo qaadaysaa waxaad uga soo qaadaysaa marka aad salaamayso waa in si adag aad u salaantaa oo runtii qalbi furan uu ku jiro oo waji furan uu ku jiro waxa kale oo iyadana tilmaamaya qofka inaad tixgelinayso waxa tilmaamaya qofkii dareenkiisa wanaag tixgelisaa qofku marba wax buu dareemay mar uu faraxsan yahay markuu faraxsan yahay inaad la faraxdaa marna uu kacsan yahay oo runtii arimaha ku furan uu murgoonaya waa inaad la murgootaa
mar dhib baa haysataa dhibta waa inaad kala qayb qaadataa inaad runtii la xaliso mar wuxuu kaaga baahay caawimo inaad caawiso markaana waa inaad caawisaa arimaha marka aad la timaado ee qofku uu dareemo qofkan inuu markasta uu la joogo oo wuxuu rabana uu la qabanayo oo dareenkiisa uu la qabo markaas qofku wuxuu dareemayaa agtiisa inaad muhiim ka tahay dawad saaleero aad u muhiim ah soo qaadanina tusaalaha waxaan ku soo qaadanaynaa xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulullaahi muhammad oo ugu fiican cid tusaale lagu soo qaato isaga ugu muhiimsan isagaana ugu horeeya ayaa waxa dhacay isagoo khudbad ku jiro saxaabada u khudbadaynaya ayaa nin reer miyi soo galay ninkii reer miyiga markuu soo galay ayuu rasuulka ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxaan ahay nin reer miyiga oo diintiisa aan waxba ka garaneyn ee diinta wax iga sheeg khudbadu way socotaa saxaabadii waaweynaa baa fadhiya dadkii baa dhageysanaya rasuulku intuu ka soo degay mambarkii ayuu ninkii acraabiga reer miyiga u yeedhay markaasuu yiri kursi ii soo dhiga markaasaa rasuulka kursi loo dhigay sallallahu alayhi wasallam markaasuu ninkii reer miyiga wuxuu baray arrimihii diinta rasuulku markii uu baray arrimaha diinta markuu wixii wax ka baray ayuu rasuulku haddana dib ugu soo noqdo khudbadiisii oo bartii ka sii bilaabay arrintan daawada maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo muhiimada gaara u siinayay saxaabadiisa ninka dhamay reer miyiga ah ee khudbadii dhamay oo socoto muslimiintu ay dhigsanayaan soo galay rasuulku mu waa reer miyiga ummadda la hadlaysaa ummadda la sii hadal bal gaar isaga ayaa muhiimad gaar u siiyay si gaar u taxgaliyay uu soo daadagay uu la hadlay isaga hawshiisii markuu dhameeyay ay khudbadiisa halkiisa ka sii watay dawada maxaa laga rabaa aniga laga rabaa adiga laga rabaa qof kasta oo aad la dhaqmayso ha noqdo qof daciifa qof miskiina qof weyn qof yar waa inaad qof kasta ku noqdaa muhiim waa inuu ku noqdaa waa inaad taxgelisaa qofka dareenkiisa waa inaad ka dhigtaa qof important qof very important waa inuu qofkaasi noqdaa oo runtii aad u muhiim ah oo aad taxgelisaa dawa qodobkaasi waxa weeyaan waa qodobkii labaad oo tilmaamaya qofka hadaad rabto inaad runtii soo jiidato haddii aad rabto inuu qofku ku jeclaado haddii aad rabto inaad noqoto qof akhlaaq wanaagsan ku dhaqma waa inaad qof kasta oo runtii aad la kulmayso waa inuu ku ahaado qof muhiim ah oo dadka qaarna aanad ihmaalin aanad ka soo qaadan inaanay jirinba waxba aanay ahayn dadka qaarna aanay ku noqon dad aad u muhiim ah dadka dhan waa inay muhiim ku wada noqdaan qof kasta waa inaad tixgelisaa dareenkiisa waa inaad tixgelisaa wuxuu diiday waa inaad ka ilaalisaa waa inaad la socotaa arrinta dawa qodobka saddexaad waxa weeyaan ama sifada saddexaad ee tilmaamaysa qofka haddii aad sidaa ula dhaqanto inuu qofkaasi runtii qalbigiisa ku soo jeedinayo waxa weeyaan qofka waa inaad ogaataa dabiicadiisa waa inaad ogaataa qofkaas dabiicad gaar u leeyahay dabiicadaha dadku way kala duwan yihiin qof baa jecel runtii sheekada qof baa aamusan qof baa keligii markaas runtii ahoo socda qof baa jecel runtii kaftanka qof baan kaftanka jeclayn qof baa misaajiyo marba isbedelayo marba nooca qofku waa dabiicadiisa fahantaa haddaad qofka dabiicadiisa fahanto waxaad garan kartaa qaabkaad ula dhaqmayso iyo qaabkaad ula hadlayso laakiin haddaad ka soo qaado oo dadka dhan inay dabiicadaadu leeyihiin oo qaabkaad adigu naftaadu aragto dadka dhan had u wada aragto maxaa imanaya inaad dadkaas ku dhacda qofkii aan kaftanka jeclayn markaad la kaftanto inaad sanacdaa qofkii runtii rabay in loo sheekeeyo sheekooyinka ka helayay markaad aamusnaata uun inuu isna runtii dib kaaga korto marka maxaa dawada laga rabaa qofka dabiicadiisa wada fahantaa dawada inta waxa ku dheeraanaya qofka usluubka uu la hadlaysana waa inaad garataa oo qofku qof weyn ma ku yahay اسلوب gaar ah loola hadlaya qof dumar ma ku yahay qof yar ma ku yahay qof macallin ma ku yahay qof kasta اسلوب gaar u baahan yahay marka اسلوبkii gaar qofka aad ula hadlayna waa inaad ogaataa haddaad dad isku wada nooc ula hadasho oo hadalkaaga qallafsan ee kan qofka saad qaabka ugu dhigto dad badan baa runtii ka cararay oo ka tagaya dawada intaas oo kaliya ma wax la iraahdaa waa qodobada ugu muhiimsan qofka aad runtii rabto inaad soo dhaweyso waa inaad ogaataa sheekooyinku jecel waa maxay muxuu ka helaa qofka runtii waxa muhiim ah la yiraahdaa haddaad ogaato sheekooyinku jecel yahay oo marka aad uga sheekayso sheekooyinku jecel yahay waxa runtii culimo nafsi xaqiijiyeen qofkaasi inuu noqonayo qofka saaxiibka kuugu muhiimsan ee ku jecel sababtoo waxa dadka bani aadanka ah dadka isku sheekada yihiin aad buu jecel yahay laakiin qofka haddaanad ogeyn sheekada uu jecel yahay iyo waxa uu ka helo oo wax kale uga sheekayso qofku wuxuu dareemayaa boring buu dareemayaa
caajis buu dareemaya sheekadaada runtii kamana guraayo marka inaad qofka wuxuu jecel yahay iyo sheekooyinku jecel yahay iyo waxa inaad runtii la socoto oo marka aad runtii arabto inaad u sheekayso arimahaasi ay ku jiraan waa waxalaha keena labada qof inay soo dhawaadaan bale wax badan baa maqashay hebel isku sheekaanuna wax kala ma aha waa dadkii sheekadii bas ugu dhacaysa marka wax la yiraahdaa qofka hadda rabto inaad soo jiidato inaad runtii muxuu ahaay akhlaaqdiina labadiina si fiican isu fahantaan waa inaad isku daydaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa inaad fahanto sheekooyinku jecel yahay wax xuseeyo kadibna qaabkaasi waa inaad ula dhaqantaa markasna niyadda adigoo ka haya akhlaaqda wanaagsan qodobkaasi waxa weeyaan qodobkii saddexaad qodobka afraad daawada waxa weeyaan ee keensanaya qofkii hadal qaabka ula dhaqanto in qofka aad isku soo dhawaataan oo runtii aad muxuu ahaa qalbi qulubtii isku soo dhawaato waxa weeyaan daawade qofka waa inaad dhageysataa dhageysigu waxa la yiraahdaa waa qodobada ugu muhiimsan ee keensanaya dadku inay isku soo dhawaadaan dadku inay isjeclaadaan daawada haddii aad rabto akhlaaqdaadu inay wanaagsanaato waxa qodob aad u muhiim ah dadka inaad dhageysato kaliya un ha sheekeynin dadka kale markay sheekeynayaan iyagana dhageyso dhageysiga marka aanu leenahay uma jeedno oo kaliya inaad maxaa dhagaha afurtee waxaanu u jeednaa qofku wuxuu ku leeyahay fahanto dad badan baa waxa jira qofka way dhageystaan laakiin marka ay dhageysanayaan meel kale ay ku sii jeedaan waxa ku sii jeedaan qofka inay u jawaabaan hadii nooca ah tahay daawade waa qodob aad u muhiim ah in runtii sifooyinka noocaas iska ilaalino dhageysiga waxa la yiraahdaa bal waa sifooyinka ugu muhiimsan baa la yiraahdaa qofka leaderka hogaamiyaha waxa la yiraahdaa sifooyinka ugu muhiimsan looga baahay waxa weeyaan ummadiisa inuu dhageysto macallinku waa inuu ardayga dhageystaa oo dulufihiisa la socdaa ninka dhakhtarkii waa inuu dhageystaa qofkan runtii uu daweynayo bal waxa la yiraahdaa dawada qaybaha ugu muhiimsan waxa kamid ah markuu qofkii runtii bukoonay ee cudurka qaba markuu arko dhakhtarkii dhageysanaya oo runtii qofkii uu laabta uu qalbigiisa ka soo saaro waxa la wixii ku jiray waxa la yiraahdaa qayb bay ka tahay dawaynta qayb bay ka tahay laakiin se dhakhtarku isagoo kuba dhageysanba waxa la waxa ku hayo isagoo ku eeginba haduu dawo iska ka qoro xataa dawadaasi haday fiican tahay wax laga wax badan inaan ku bogsin baa dhici karta marka dhageysiga waxa la yiraahdaa waa qodob aad u muhiim ah dadka madabada marka aad dhageysanayso waxa la weynaad fahamtaa waxa runtii aad loo sheegay qiso aad u cajiib ah qisadan waxay ka dhacday dalka Mareykanka laba waalid hooyo aabo ayaa waxa u tageen jaamacadda Harvard University bay tageen waxay rabeen inay la kulmaan gudoomiyaha jaamacadda xafiiskiisa markii ay galeen ayaa sekretariyada gudoomiyaha waxay tiri gudoomiyuhu waa mashquul waqtigiina ma hayo kadib waxay ku yiraahdeen waanu sugaynaa way sugeen muddo marka ay sugeen ayaa sekretariyadii iyadoo aad ugu xun sugitaanka ay sugayaan oo jeclad inay iska tagaan ayaa waxa uu tagtay gudoomiyaha jaamacadda oo tagtay waxa ku tiri dadkan ma tagayaane fadlan waqti yar siiyo la kulan gudoomiyaha isagu wuxuu soo arkayay dadku la kulmaya inay dadka waaweyn ee muhiimka ah laakiin dad iska muxuu haayay in aan sida u sii muhiim ahayn ma buudanaynin balana aan lahayn marka la soo qaado ala kulli hal markii dambe wuxuu aqbalay inuu la kulmo marka uu la kulmay ayaa labadii waalid waxay ku yiraahdeen inan aanu dhalayba jaamacadda dhiganay Harvard University inankii uu dhintay markuu intaanu dhiman ka hor waxaanu ogeyn jaamacadda inuu aad u jeclaa oo aad u xiisin jiray marka waxaanu jeclaanay in runtii muxuu haayay jaamacadda meel lagu xasuusto iyo wax lagu xasuusto loogu sameeyo inanka yagi gudoomiyaha jaamacadda isagoo fahmay waxa uu jeedaan baa wuxuu yiri jaamacadda looma abuurin in muxuu haayay qof kasta oo dhinta looga sameeyo meel lagu xasuusto hadii kale gabigeedu wax isu bedelaysaa xusuus bay isu bedelaysaa waxa ku raysaa uma jeedno waxaan u jeednaa dhisma inaan u hibayno jaamacadda aanu siino oo dhismahana aanu ku qorno magaca inanka yagi wixii ma garan kartaan dhismaha Harvard University intuu idinku kici karo wuxuu yiri dhismahan imika arkaysan Harvard University waxa weeyaan wuxuu ku kacay jaamacadda markii la sameeyay in 1884 7 milyan iyo bar ayuu ku kacay marka saad uga bixi kartaan dhismahana arkaysan ba intaaba ku kacay isagu markaa wuxuu rabay inuu niyad jabiyo raahdo dhisma marksame waxba ma hibayn kartaan oo lacagtu way badanta inta markuu ku yiri waalidkii
ayaa islaantii waxay eegtay ninkeedii bay eegtay waxa ku tiri Stanford maadaama jaamacadani ay ku kacayso 7 milyan iyo badh maxaynu inankeena ugu sameyn weyne jaamacad u gaara oo magaciisa qaadataba oo magaciisa lagu qoro maxaynu ugu sameyn weyne ninkii wuxuu waa fikrad fiican labadayba way kaceen hal mar ninkii soo yaabanoo oo la yaaban dadkan muuqaalkoodu wuxuu u muuqdaa dad aan lacag haysan dad reen miye u muuqdaan dharka xidhayn waa iska dhar baaliya marka isagoo nooca u arkay haddana waxay ka sheekeynayaan aad buu yaabanaa ninkii naagtii way kaceen jaamacadii bay dhiseen jaamacadii dhiseen madrasa magaceeda Stanford University waa jaamacadaha ugu waaweyn maanta Mareykanka jaamacada ugu quality-ga fiican leh Mareykanka arintaas maxay tilmaamaysaa waxa tilmaamaysaa ninka odayga jaamacada gudoomiyaha ka ahi muu dhageysan labada qof waxay rabaan muu eegan bal maxay waxaan rabaan muu dareensaneen inay lacag haystaan kaliya wuxuu arkay muuqaalkoodii sida uu eegayeen maadaama muuqaalkooda uu qiimeeyo arkay dad aan lacag haysan tixgelin muu siinin muu dhageysan laakiinse maxaa ka soo baxay wuxuu filan waayay jaamacadan waa kuwa aasaasay oo maanta caalamka aad looga yaqaan waana qiso dhab ah oo dhacday dawlad qodobka waxaanu la jeednaa qofku waa inaad dhageysataa ha ku qiimeyn qofku dharku xidhan yahay muuqaalkiisa qofka miskiinka hadda tirada wax dhageysanaya qofka weyn ee muhiimka ah ee masabka haysta miskiinka ma dhageysanayo looma baahna qof kasta waa inaad dhageysataa si fiican u dhageysataa dawlad qodobka shanaad waxa weeye haddii aad rabto dadka inaad soo jiidato oo runtii qalbi akhlaaqdaadu wanaagsanaato oo dadka isku wada fiicnaataan maxaa lagaaga baahan yahay dhoola cadin baa lagaaga baahan markasta ay dadku kula kulmaan waa inaad dhoola cadaysaa dhoola cadayntu maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qalbigaaga inuu furan yahay waa runtii waa message waa risaalad qofka u dirayso leedahay waan wada hadli karnaa waan isfahmi karnaa laakiin qalbigaaga markuu wajigaagu xidhan yahay dhoola cadayn aanay ka muuqan qofku xataa markuu saa ku arko uu ka boodaya marka dawada wax la yiraahdo dhoola cadayntu wax la yiraahdo waa albaabada ugu muhiimsan ee qulubta furaa la yiraahdo marka inaad dhoola cadayso oo markaas aad dhoola cadayso bal taasoo kaliya ma aha qalbigaaga message u diraysa marka dhoola cadayn sameeyso maskaxdaada message u diraysa inaad farxsan tahay kadibna farxadii baa qalbigaaga galaysa kadib runtii farxad baad yeelanayso marka inaad dhaw markaas dhoola cadayso waa qodob aad u muhiim ah dawad qodobkaasi waa kii shanaade qodobka lixaad wuxuu yahay aynu ku soo khatimayna haddii aad rabto dadka inaad si fiican u wada dhaqantaan akhlaaqdaadu wanaagsanaato oo dadka isjeclaataan waxa dawada laga rabaa waa inaad qofka magaciisa ugu yeedha magaca qofka oo ugu yeedha macna gaar ah qofka uu sameynaysa qofka saa wuxuu ugu jecel yahay magaciisa in la sheego marka qofka magaciisa inaad ugu yeedho oo hebel oo tiraahdo waa qodob aad u muhiim ah bal waxa la yiraahdaa maanta haddii qof imka intaad la kulanto oo in yar saragtaan oo muddo ka bacda aad la kulanto oo magaciisa aad sheegto qofkaas weligaa ku ilaahi maayo sababtoo wuxuu isweydiinayaa sidee buu qofkan u xasuustay magacaaga marka muxuu dareemayaa inuu agtaada muhiim ka yahay ayuu dareemayaa markaas qofku magaciisa aad ilowdo markaas oo sheegi weydo waa markaas qofku dareemayo agtiisa inaad waxba ka ahayn dawada marka maxaa muhiim ah waxa muhiim ah qofka magaciisa waa inaad sheegtaa inta badan waxay nagu dhacday inaga qofka magaciisa lama sheego naanays baa loo sameeyaa naanaysta la sameynayaana inta badan maxay isticmaalaa qofka waxaan intiisan uga dhignaa naanays taasi dadka lagu yeedha arintaas khatar weyn bay leedahay bal qofku markuu yar yahay khatar weyn bay ku leedahay oo qofku markuu yar yahay isagoo isgaranayn inta uu leeyahay iyo mushkilada uu qabo marka naanays looga dhigo markiiba uu aaminaya wuxuu aaminaya inta inuu leeyahay kadibna wuxuu arkaya mujtamacu sida u nacab yihiin inta uu leeyahay kadibna cuqdad bay ku abuuraysaa kadibna mushkilad weyn ku keenaysaa ardayga marka dawada waxa muhiim ah inaad qofka magaciisa aad ugu yeedho oo runtii isku daydo markaas inaad xifdisanaato qofka marka lagu barayana inaad markaba aad awoodda saarto magaca inaad xifdido oo inta magaca lagu sheegayo magaca aad xifdido magaca aad ugu yeedho dawada intaas ku soo koobaynaa aad bad ma santii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh